bulshada hubaal waan ku tirsado huqdii nabadiidka iyo hadimo walaga bogsadaye huqdii nabadiidka iyo hadimo walaga bogsadaye ayuga dhulkana hoyo uhegana admiga bulshada hubaal waan ku tirsado huqdii nabadiidka iyo hadimo walaga bogsadaye huqdii nabadiidka kadibna markii la soo gabagabeeyay gargaarkii ciidanka booliska gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ugu talagaleen bulshada ku dhaqan qabalaha Casbul ee ka tirsan degmada Erir ayaa taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ah Janaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale wuxuu shir la qaatay waxgaradka iyo odayaasha ku dhaqan qabalaha Casbul ee degmada Erir isagoo u sheegay odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan qabalaha Casbul in deeqdan ay ugu timid ciidanka booliska gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka danqaday walaalahooda dhibaataysan oo saameysay roob yaraanta ka dhalatay isbeddelka cimilada adduunka qorshaha iyo ujeedada socdaalkanagu wuxuu ku salaysan yahay maadaama ay dhibaato ka jirto runtii gobolkan city gaar ahaan meelo macnaa badan oo degmooyin halkana ay ka mid tahay dadkii iyo bulshadanadii ku noolayd dhibaatada maaragtay idinla soo daristay ee rabbi keenay ee maaragtay xagga minallaahida ka timid inaan dhibaatada idinla qaybsanno aan idin muujinno idinla sheegno inaan maaragtay ka ciidan ahaan inaan ka xunnahay oo aan idinla xanuunsanayno dhibaatadaasu ayna mid keligiin uun idin haysatay inayna ahayn inaan annaguna aan idinla dhibaataysannaho dhibaatadiina aan ka xunnahay ciidanka booliska gaarka guud ahaan waxaan idiin sheegahayaa maadaama aan nahay wiilashiinnii runtii aan go'aansannay wax kasta oo garab ahoo aan idinka siin karro oo hawshaa maaragtay aan idinka caawin karro inaan idinka caawinno taas waxaa horgalkeeda uu yahay oo jidka hadda aan u soo marray kow inaan dhibaatadiina aragno laba wax kasta oo maaragtay garab ahoo aan idinka caawin karro qorshahan ka wada hadallay oo aan soo go'aansannay runtii weeyaan taas raashinkan hadda aan idiin wadnay maanta halkan aan ku qaybinay runtii waxa weeyaan mushaharkii ciidanka ayaan ka soo jarray guud ahaan ciidanka libi booliska mushaharkiisii ilaa mas-uul ilaa askari intaan ka wada hadallay oo aan go'aansannay ayaan soo fulinay runtii wixii tabar ahaa ee aan maaragtay maanta shacabkanagaa dhibaataysan aan ku caawin lahayn waa mid maaragtay aan ula nimid weeyaan oo saaka maaragtay aad arkayseen waxaa go'aankanagu uu yahay ka ciidan ahaan meel kasta oo shacabkanagu ku dhibaataysan yahay ama jid ha lahaato ama yeena lahaanin ama wadda ha gasha ama yeena gelin ama dad yar ha jooga ama dad badan ha joogo inaan cagahanaga ku tagno isla markaana aan ogaano dhibaatada shacabkanaga haysta wax kasta oo garaba oo aan ka siin karro na maaragtay aan ka siino
caajisaynan cabsoonino ciidankaygiyo cimriga jiro dhanka kalena waxaa shirkan ka hadlay gudoomiyaha gobolka City mudane Cabdiwali Maxamed Faarax aad baan ugu mahadcelinaynaa Janaraal Cabdiraxmaan iyo kaalmada ciidanka liyu booliska dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay dadkooda shacabka ah ay ka taqaadeen ay la soo gaareen aad baan ugu mahadcelinaynaa shalayto ilaa doraad way socdeen meeshan kaliya ma ahayn xaariso oo degmada Hadhagaala la ka tirsan oo dad idinkoo kale ay joogaan ayay oo abaartaan kale oo saameysay ayay soo siiyeen farato oo degmada Shinila ka tirsan bay raashin ka soo qaybiyeen casbuli oo meesha la yiraahdo degmada erar ka tirsan maanta waa tan aan joogno taa marka waan uga mahadcelinaynaa annagoo afka dadka shacabka ah ee gobolka City ku hadlayna iyo maamul ahaanba waxaan leenahay ciidanka liyu booliska hariya hameyn waad mahadsantihiin gabagabadii shirkan ayaan waxaan wareysanay shacabkii ay soo gaartay gargaarka ee ciidanka booliska gaarka ay ugu tala galeen bulshada degan qabalaha casbuli waana kuwan qaar ka mid ah shacabkii aan wareysanay oo tilmaamaya sida ay ugu faraxsan yihiin gargaarka ay ka heleen ciidanka booliska dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ilaa askari mas'uul iska soo gooyay mushaarkooda ciidamadayada liyu booliska raashinka ay saaka noo keeneen waxaan ugu mahadnaqaynaa الحمد لله رب العالمين إلهي أنت ينو غرغاريان يكن هاو غرغارو سيدا ينوغو غرغاريان الله هاو غرغارو تونون وحي أي نو كينين قبلها يغا عسبولي ان دقنهاي أي نوغو كينين ساكا بريس يا سكر يا كبها وانكم مهنقاينا إذا كيغا شرفت لي يانكم مهنقاينا راشنكا أي نو كينين إلهي با محله sokorta bariiska raashinka baan ku mahadnaqaynaa kabaha ilaahay bay noo garab joogsadeen way ku mahadsan yihiin waan ku jecelahay ilaahaygu ha ka jaaysiiyo waxaan leeyahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin dawladda Itoobiya oo gacan qabatay dadkii oo gaajo iyo macaluul iyo daran ay dhamaysay oo maantana liyu booliska Itoobiya uu keenay sida shakartoo kala amba bariiskoo kala amba kabahoo kala uu keenay alxamdulilaahi rabbil caalamiin baan leenahay ilaahayna waxaan ku mahadinaynaa dawladayada iyo sharafta leh oo noogu soo dhiibay adduunyada maanta aan gaajadii iyo dhibaatadii aan kaga baxnay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa weeyeen qabalaha casbuli ay noogu keeneen waa shukrilah alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaayo ilaahay aan ku mahadinayno dhibaatadii iyo gaajadiina aan ka baxnay oo daranyada ayna dhaaftay oo naga saareen dawladda Itoobiya iyaan ku mahadinaynaa ubadkayagii ayna soo gaareen ay daranyadii naga saareen ay gaajadii naga saareen ay noo keeneen wax kasta aan ku jiraan shakar bariis saakan ayna siinaan kabii ubadkii cagaagna ay noo siiyeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin wax qarshi oo naga baxayn ay jirin alxamdulillah iyakana garabkoogaan leeyahay ilaahay inuu gargaaro ummadaas ugu gargaaro inuu iyakana u gargaaro saaka waxaan ka run sheegaynaa ciidanka iyo laysay madaxda wasiirada dalka Itoobiya oo aan u mahadnaqaynaa dadka barakaca ah abaarta ay ku dhifatay ciidanka liyu boolis oo bishaaradiisii soo gooyay oo dadkooga walaalahooda barakaca ah u soo huray oo u xamaalaya oo gacantooda ugu qaybinaya ilaahay ha ka jisaa'isiiyo iyaan u mahadnaqaynaa meesha aan joogni waxa weeye casbili anu magacaygu waa geella qayaad askar goobtii abaartu ay ku dhifatay dalkaba way ku wala dhifatay ugu xumayd barako ugu badnaa baan joognaa subaxnimo 6 aroornimo ay qureecna cunin iyay ku qabteen ciidankaay gacantooda inay wax ku siiyaan inay u xamaalaan qof xamaalihi baabuurka waxba ka dhaadhicin way gacantooda ugu qaybiyaan ilaahay ka jisaa'isiiyo dawladdana mahad baan ugu celiyaan u naqaynaa ciidanka dalka nabad sugista ee liyu boolis
sidaa buu samafalkaa buu yeelay abaarta gargaarkaa buu ka geystay hadda inta ay nagaga hadhaysana wayna garab taagan yihiin sidaa baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leeyahay saaka anigu magacaygu waxa weeyin cabdi roble maxamed qabaleega aan joognina waxa weeyin casbuli weeyaan degmada neerar qabaliyada hoos taga weeyaan waxaan saaka ka warbixinaynaa haddadan la joogo ciidamadayadan dawlad deegaanka Itoobiya ee liyu boolis inay saaka u keeneen aroortii subaxnimo dadkii deganaa barakacayaasha halkan deganaa ee abaartu ay ku dhacday inay u keeneen caawimaad ay ka gooyeen bishaarkooga hadda caawimaadda kala bariis iyo sonkor iyo kabo inay ku gaarsiinayaan haddana gacantooda ay ku qaybinayaan ilaahay ha ka jisaaysiiyaan leenahay dawladdan degmada ilaa heer gobol oo iyaguna goobjoogayaal uga tii degmada iyo tii deegaankaba iyagoo goobjoogayaal uga ay ciidamadan liyu booliska maanta ay ka qayb qaateen dadkan abaartu ay ku dhacday dhibtu ay ku dhacday iyaan annana ka warbixinaynaa uguna mahadnaqaynaa ilaahayna ha ka jisaaysiiyo waxa diray iska xidhay degta qoriga isudhay danta qaranka weeye dalka iyo dadkaygo diintaan ku dhaartay daacad baan idiinahay daacad baan idiinahay waxa diray iska xidhay degta qoriga isudhay danta qaranka weeye dalka iyo dadkaygo diintaan ku dhaartay daacad baan idiinahay daacad baan cadowgii u bada ragciilaye cagta mariyayow cimriga jiro ragin cabsooninow ciidankaygiyow cimriga jiro ragin xaajisaynan cabsooninow ciidankaygiyow cimriga jiro وهاجاك داود يلا انتاس ايان كسو gabagabeynayna barnaamijkii gaarka ah ee ku eegeynay socdaalkii uu hogaaminayay taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku soo indheynaya xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin dadka ay saameysay isbedelka cimilada ee ku dhaqan degmooyinka erer hadhaga leh iyo Shiniile oo ka tirsan gobolka City waxaan idin socodsiinaya daawad yaal isla markaasna idin soo diyaariyay anigoo ah Axmed Ibraahim Axmed waxaan igala qayb qaatay barnaamijkan dhanka habeynta oo Ibraahim Cabdi Muuse iyo kaamiradi Maxamed Suceeb inta aan kulmi doono mid lamid ah barnaamijkan dhamaanteen waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh ciidankii layuugow xirjidhso baxow cawo dhoolaadkiyow cimriga jiro shuftada ragiciijiye ubacidhibtirow cadowgiina jabo ragicuuney u beeshifta calaashadow ciidankaygiyow cimriga jiro ciidankiyada dalkiya carshimaa la daaga ciidankii dhowrayow cadowgiina jabo caafimaadka iyo cilmi iyo biyaba ragicuuniyayow cimriga jiro cadowgii u bada ragciilaye cagta mariyayow cimriga jiro
cabsoonino ciidankaygiyo cimriga jiro ciidankii ubada canka gaaliyaye casharka uu dhigo cimriga jiro raggan xaajisaynan cabsoonino ciidankaygiyo